is moving to an exposure-based model for views across all formats, meaning a view will now be counted the moment a video begins to play from the very first frame. kulanti wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan mar kale waxaa idin rajaynayaa inay maalin qurux badan idiin tahay sidan horay idinkugu ballan qaaday barnaamijyada update-ka uu sameeyo YouTube-ka ayaan horay idinkaga ballan qaaday in update-yada haddii ay markaas update cusub ay samayso shirkadda YouTube-ka marka aan idinkula wadaagi doono muuqaalada markaasi aan halkan aan ku baahiyo maanta waa 24 taariikhdu ay ku beegan tahay bisha 8 aan ku jirno wax dhaqan kale barnaamij ama program markaasi dadka content creator-ada aad u caawinaya waliba dadka markaasi aad ula dhibaataysan in views-kooda uu aad u liito marka waxaan kula wadaagi doonaa barnaamijkan wuxuu yahay iyo qofka markaasi qaabka markaasi u saameynayo bartiisa YouTube-ka iyo waxyaabaha kale markaasi barnaamijkan maaragtay ku dhex jira hagaag markale isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal haddii aad horey noola jirtay waxaan kaa codsanayaa in muuqaalkan like-ta inoo saartid saaxiibadaadana aad la wadaagtid haddii aad nagu cusub tahayna barteena YouTube-ka aad ku soo biirta halkan waxaan kula wadaagnaa dhalinyarada barnaamijyada ugu dambeeyey ee YouTube-ka iyo dhiirigelinta fursadaha xirfadaha skills-ka iyo weliba barnaamijyo badan oo qofka naftiisa horumarinaya 24 bishan aan ku jirno waxa dhaqan galay barnaamij ama program ay YouTube-ka soo saartay barnaamijkaasi oo dad badan oo anigu aan ka mid ahay ay wax badan ay ka caawi doonaan barnaamijkaasi haddaba muxuu yahay maxayna markaasi ka bedelaysaa barnaamijka kale ama nidaamyadii kale ee YouTube-ka u yaalay muxuu ka bedelayaa barnaamijkan ay YouTube-ka ay ku dhawaaqday waa barnaamij markaasi loogu magac daray count viewer wax la yiraahdo oo markaasi lagu xisaabinayo viewerska muuqaaladaada daawada haddaba sida uu shaqeeyaa barnaamijkan 2025 ayay shirkadda YouTube-ka markaasi ay ku tijaabisay barnaamijyada loo yaqaano ama muuqaalada shortiska ee markaa dadka soo dhiga ee markaasi viewers markaa ay ku heli jireen barnaamijkan ayaa markaa ahaa in qofka markaa haddii uu soo dhigo barnaamij shorti ah ama YouTube-kiis uu yahay YouTuberada muuqaalada shortirka soo dhigo ama muuqaalada gaagaaban soo dhiga in markaasi loo xisaabi jiray marka qof markaasi uu muuqaalkiisa uu doorto barnaamijkan ayaa waxaa lagu apply gareeyey ama dhammaan waxaa lagu jaangooyey ama dhammaan markaas uu qabanayaa muuqaalada kale oo dhan oo markaasi lasoo dhigo barta YouTube-ka haddii uu noqdo muuqaal dheer haddii uu noqdo podcast iyo weliba haddii uu noqdo muuqaal shortis ah haddii qof muuqaalkaaga uu markaasi jeclaysto thumbnail-ka kuu saaran iyo mawduuca haddii qofkaasi uu doorto mawduucaasi YouTube-ka wuxuu u xisaabinayaa in aad viewer heshay wuxuu ku xisaabinayaa in qofkaasi uu ka mid noqday viewerska markaa lagu xisaabiyo haddii laakiin muuqaalka uu qofkaasi uusan dooranin ama uusan kilig siinin uusan ku hakanin sekenno uusan ku hakanin wax markaasi viewer ahaan laguma xisaabi doono sidoo kale muuqaalka haddii qofka uu short uu yahay oo shortyadii la mumuuti jiray sida maaragtay caadiga sida TikTok oo kale oo la mumuuti jiray looma xisaabi doono in qofka muuqaalka markii uu doorto markii uu sekanno ku nagaado ama sekanno uu daawado hadduu doonaha ka baxo markaa waxaa lagu xisaabinayaa viewers ayaa lagu xisaabinayaa viewerskii caadiga lama barbar dhigayo oo wuxuu u kala qaaday YouTube-ka viewers caadiga iyo engaged viewers la yiraahdo oo barta analytics-ka waxay ku soo kordhiyeen engaged views-ka wax la yiraahdo balse waxba kama bedeli doono barnaamijkii YPP-ga ahaa oo ah YouTube Partner Program-ka ee dhaqaalaha looga sameynayay oo markaasi qofka waxaa loo xisaabinayaa viewerska markaasi oo ay soo booqdeen ama ay ku hakadeen ama sekanna ay qofka muuqaalkiis ay daawadeen sida hore usoo sheegnay hadduu yahay muuqaal caadiya sida muuqaalkan oo kale haddii aad soo doorato ee aad sekanada ugu horreeya aad ka daawato ama muuqaal shortiska haddii aad sekanada ugu horreeya ka daawato markaasi lagu xisaabinayo in aad generate garaysay ama aad heshay viewers oo markaasi vieweradaada markaasi ay kordhayaan haddaba barnaamijkan
waxa horay u lahaa ama u sameey jiray shirkadaha Instagramka iyo TikTokga oo markaasi marka uu qofka ku gujiyo ama uu doorto ama kili uu ku sii muuqaalka ee markaasi ay u xisaabi jireen 1 viewer ama inta markaasi muuqaalkaasi click siiya iyagoona markaasi aan ku hakanin viewer ahaan markaasi loogu xisaabi jiray balse YouTube-ka ayaa bilaabay inkastoo systemka ama nidaamka uu ka yara duwan yahay oo in aad ku hakato sekanada ugu horeeyo aad daawado muuqaalkaasi ama uu qofka daawadaha uu ku hakado aad markaasi lagu xisaabinayo viewer engagement ama engaged view wax la yiraahdo engaged viewers kana thumbnail-ka mawduuca ama topic-ka markaasi qofka duuxiisa geliyo uu soo doorto oo sakano ku hakado oo kaliya ayaa markaa lagu xisaabinaya oo markaasi dad badan oo viewerska ku dhibaataysan oo views yari ka cabanaya oo anagu ka mid nahay ay markaa fursad inoo noqon doonto haddaba barnaamijkan muxuu u soo kordhiyey YouTube-ka maxayna tahay qorshaha uu kale yahay qorshaha uu kale yahay waa in dadka lagu dhiirigeliyo in ay content-yadooda ay consistent ay noqdaan ay muuqaaladooda ay joogteeyaan si markaasi ay viewers badan ay u helaan markaasina barnaamijka YBB-ga ama dhaqaalaha YouTube partner programka markaa ay dhaqaale ay kaga sameeyaan marka muuqaalkan haddii aad daawanaysid oo aad ku dhibaataysan tahay ama views yari aad dareemaysid joogtay oo muuqaalo aad u fara badan soo geli ama shortska ha noqoto ama muuqaalada dhaadheer ha noqoto ama podcastyo iyo wax kastoo barta YouTube-ka aad soo gelisaa noqdo si markaasi aad u generate garayso viewers aad u badan uu markaa u sameeyo kadibna dhaqaale aad kaga samayso marka update-kaas cusub ayaa soo kordhay update-kaasi ayaa jeclaystay inaan kugula wadaago fadlan hayloobin in muuqaalkan aad like saartid oo aad saaxiibadaada la wadaagtid haddii aad nagu cusub tahayna aad bartan subscribe saaratid barnaamijyo aad u xiiso badan ayaan halkan dhalinyarada kula wadaagaa tan inta barnaamij mid kala mid ah ku kulmi doono waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo